21 Sebtembar waxay dunida ugu astaysan tahay maalinta nabadda adduunka waxaana sanad waliba la xusaa maalintan si loo falanqeeyo caqabadaha ku gudban nabadda horumarka laga sameeyay geedi socodka nabadda iyo arrimaha la xiriira munaasabadda xuska maalinta nabadda adduunka ee sanadkan gaalkacyo waxaa hal ku dhig looga dhigay sida xal waara looga gaari karo colaadaha ku soo laalaabtay deegaanada gobolka Mudug waxaana ka qayb galay mas'uuliyiinta maamulada Galmudug Puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana sanadkan dooda iyo falanqaynta lagu dul istaagay sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadaha colaadeed ee ka jira gobolka Mudug gudoomiyaha madasha nabadda iyo horumarinta dhalinyarada gobolka Mudug Maxamed Sheekh Saciid oo ku hadlayay afka soo qaban qaabiyaasha munaasabadda sanadkan oo ugu horeyntii ka hadla munaasabadda ayaa sheegay maalintan oo ah maalinta caalamiga ah ee nabadda adduunka u xuso inaan gaalkacyo iyo reer Mudug hadaan nahay iyo si guud reer Puntland iyo reer Galmudug aan anaguna dhinaceena maalinta nabadda adduunka aan iska wareysano heerka nabadeena uu joogo waxa naga dhiman waxa ay tahay inaan gaarno hubaashi gobolka Mudug iyo degmada gaalkacyo markii la fiiriyo 7 sano iyo 8 sano ka hor meeshii ay joogtay oo runtii colaada iyo maaragtay mugdiga iyo kala qaybsanaanta bulshada iyo barakaca ay qaxa ahayd 7 sano kadib waxaan joognaa meeshii meel ka roon intaano bulsho ah oo taytala kala duwan iyo mas'uuliyad kala duwan haysa inay xilli hayeen inta isku yimaadaan ay mawaadiicda muhiimka ka shaqeystaan ma fududeyn 7 sano ka hor laakiin waxa is weydiin mudan 7 sano kadib ma gaarnay halkii aan u baahnayn أنا وحنا مثلا جوابت إن تهمية نبضي لا بعنا إنه قبل كانوا جارو أما وقت قبل أن نقصه بحية هير معمول هير بلشوا مرة بقى واحد شرا قلقلتوين دباتوين كسل اللعبان هيا مركموهم بينات هاي همين كان همين نكال الله مذا إن همين كان كليا استثناء ما هني إن أنا وحسكوي دينه بلشدنا قبل كمدوك يتجمد قال كعي لبضا معمول ولا لها الصوماليين ودرس كان كاهي إن أسوي دينه سند والبابا maxaa horumar oo ka sameeyna dhanka nabadda maxaa dib u dhac oo jira caqabadaha iyo dhibaatooyinka jira maxaa lagu xalin karaa heer bulsho iyo heer maamul bayna isweydiino waxaan rajaynaynaa shirarka hadda bilowday oo dawladuhu ay hogaaminayaan insha Allah taala inay nabad ay horseedaan sidoo kale kulanku intuu socdo waxaa jiri doona panel insha Allah taala looga doodi doona sidii xal waara loo heli lahaa maalin kasta gobolkeena iyo degmada gaalkacyo dhibaatooyin colaadaha ka dhaca حل بالغ جارا لكن وحلكم الجارة أما وحل يرادو دبدمس أي الله سميا وحنو بعنا إن مسكحة بالشدة أي شيء مسؤولين تمشي إيمان ناس أنويدينه أنا أنا قفل بين بودكيس وقدره سيدي حل وارا قبل كانوا وهلي لها dood kulanka ayaa lagu dul istaagay sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadaha colaadeed ee ku soo laalaatay iyo caqabadaha haysta nabadda taas oo mas'uuliyiinta ka qayb galayay dooda oo midwada calka istaagay aragtidiisa iyo khibradda uu leeyahay arrimaha xalka gaarista colaadaha qabaa'ilka arrimaha hadda ka jira gobolka bariga iyo galbeedka ka jira intuba waxaad moodaa in xoog ugu badan dawladuhu ay gelinayaan in nabad laga helo waxa ugu muhiimsan waxyaalaha dadka reer miyiga ah oo colaadu ka soo fufto ay aad ka ma garanaysaa isugu hayaan oo ay kamid tahay in daaqa siyaasad loo sameeyo oo ay kamid tahay waxyaalaha ay u daran oo sida biyaha iyo arrimahaas in laga jawaabo oo wax ku filan loo helo anigu waxaan is leeyahay qodobada ugu waaweyn ee gobolkan xal waara lagu gaari karo waxa kamid ah horta marka hore in la helo maxkamad wadata fulinteeda oo aan hoos tagin maamulada gobolka Mudug awoodoodu tahay hadii la helo marka meelo iskoolaadka kale meelihii nabad oo kale businesska sharing-ka oo tusaale wuxuu yahay aniga iyo dhalinyarada nin kamid ah ama gabar kamid ah aan ganacsi wada leenahay oo labada dhanku doon uu ka furan yahay waxa imaanaysa in qof kasta ganacsigiisa uu ilaaliyo mas'uuliyiinta maamulada Galmudug iyo Puntland oo ay weheliyaan madaxda ururada bulshada ayaa dhankooda sheegay doorka ay ku leeyihiin nabad dhalinta iyo baaqooda ku aadan joojinta dilalka ku salaysan aanooyinka qabiilka ee ka soo cusboonaaday gobolka maalin walba waxaan ka wada hadlaynaa nabad maalin walbana ardaal wuxuu bixiyo baa mas'uuliyiinta
iyo dadka hoggaanka bay isku hirtinayeen oo isku mari la'yihiin nabadda aan ka run sheegno nabadda annaga naga laalaadaa dhexdeennay ka jirtaa waan aaminsanahay waajibka koobaad inaan annagu qaadano inaan nabadda u istaagno ka dhabayno wax hadda dib u heshiisiin baa la joogaa waxaan u baahannahay waxa la yidhaha dhab u heshiisiin magaalada xaaladii adkaa dadkii ku soo shaqeeyey oo xogteeda hayay oo ka soo dhex shaqeeyey og ma isku dayi karaa inagu dhalinyaro ahaan inaan ka baxno barafka iyo biyaha iyo qabowga iyo waxaan aan hoteelada aan ku qabanayna inaan inta isaga baxno bannaanka u baxno oo coladahu markay dhacaan aan isu nimaano oo dhexdooda seexano oo runtii aan isku dayna inaan maaragtay difaacyada anagu aan gala laftirkeeno oo sidaas oo kaleeto kan aan qoriga ka qaadno kana qoriga ka qaadno isu keenno oo maxay isku dilaysaan in la yiraahdo ma isku dayi karaa su-aashu waxa weeye inagu laftirkeeno waa inaan barafka iyo qabowga iyo dadkan iyo meeshaan ku jirna waa inaan ka tagnaa colaadu hadda waxay taallaa baadiyaha runtii baadiyuhu ma sii ahaanayo sidaan magaalada soo galaysaa haddana baadiyaha kaliya ma ahaana sida saxda ah dadka waxaa lagu laayaa baabuur magaalada inay ka baxaan dadka wax laayayay yihiin waa dhalinyaro dadka la dilayaa ayay yihiin waa dhalinyaro walaalayaalow iyo wiilasheeniyow dadkaasaa u baahan waa in dadkaa loo tagaa waa in dadkaa la wacyigeliyaa waa in dadkaas xoolanimada laga saaraa xoolaha iyaga isku caqli waaye hal oo geel ah lagu dagaalamahayaa 100 waxaa ku dhimanaysa nafood marka yaanaan noqon dad sanad walba geel sababsada yaanaan noqon dad sanad walba geel u dhinta waxaan micno lahayn dad ku dhinta war in dagaal wiil ku dhinta maana ama qof ku dhintay wiil inuu ku dhinto horta ka soo horjeeda qodobka ah waa in la dhahaa dagaal qof ku dhintay ilaa wiil iyo gabar baa dhimanooyaa nabad baa naas la nuugale Soomaalidu way tiri kelmado kalena nabad way ka tir laakiin mid aan aniga iyagu in baa jirta taas waxa weeyaan nabadda waa lagu tarmaa colaadna waa lagu tirmaa midaasaan ugu jeclaa Soomaalidu waxay ka tiri nabadda waa lagu tarmaa waa lagu noolaadaa waa lagu barakoobaa waa lagu barwaaqoodaa waa lagu bataa colaadana waa lagu tirmaa waa lagu halaagsamaa waa lagu hoogaa waa lagu agoontoobaa waana lagu cayroobaa maana ahayn sida daraadeed annaga waxa dan noo aan nabadda iyo horumarka walaalo ah colaadda iyo dibudhacuna waa walaalo waa ina colaadda iyo dibudhaca meel iska dhigno nabadana qaadano si in wadada horumarka u qaadano inaan si xagsano oo wada jirkeenaas iyo wada shaqaynteenaas aynu heerka ku soo gaaray maanta aynu ka wada shaqeynaa la rabaa cid walba oo mijaxaabinaysa amnigeena aynu qayb aynu ka wada jiro oo qof walba qaybtiisa uu qaato baan ka rajaynayaa insha Allah taala ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda maaliyadda maamulka Puntland Maxamed Faarax ayaa sheegay in maamulada Galmudug iyo Puntland ay dadaal ku bixinayaan soo afjaridda xiisadaha qabiilka salka ku haya ee baryihii ugu dambeeyay ka dhacay gobolka Mudug in nabadda gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo aad looga shaqeeyo in la xoojiyo walaalnimada in la xoojiyo daris wanaaga in la xoojiyo isdhexgalka runtii aad iyo aad baan waxa ugu faraxsanahay in maantay dhalinyaradu hormuud u tahay nabadda gobolka oo dhalinyartan maantay ay soo agaasimeen ay nagu boorinayaan isdhexgalkii walaalnimadii iyo wada noolaanshihii la xoojinayo aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay